بسم الله الرحمن الرحيم baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta waxaa loo qaybiyay buug-yare ka hadlaya waxqabadkii xukuumadda taasoo ay soo diyaarisay xukuumadda ahaana waxqabadkii wasaaradaha xukuumaddu ay qabteen xafiiska ra'iisul wasaaruhu hogaaminayo ay ka shaqaynayeen boqolkii maalmood ee la soo dhaafay shacabka Soomaaliyeedna ay ugu adeegayeen buuggaas ay ku faahfaahsan tahay dhammaan waxqabadkii waxaana la filayaa dhawaan in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu hortago baarlamaanka oo uga warbixiyo waxqabadka boqolka maalmood ee la soo dhaafay runtii waxaan arkaynay dad marar dhaweyd baraha bulshada qaarkood dacaayado sameynaya oo dhahaya ra'iisul wasaaruhu wuxuu horgeynaya baarlamaanku waxay ahayd maaragtay muddo kororsi iyo wax la mida baarlamaankan waa laga horjoogsaday ma jirin wax laga horjoogsaday sideeda waxay ahayd in baarlamaanku maanta loo qaybiyo qoraalkaas shalay baarlamaanku loo sheegay maantana markii baarlamaanku loo qaybiyay waxay dabcan laga filayaa in guddoonka baarlamaanku ay waqti u qabtaan ra'iisul wasaaraha kadibna uu hortago baarlamaanka oo u faahfaahiyo ma jirto waxa dadka la fidinayo runtii waxaa habboon xilligan la joogo waa xilli kala guura waxaa habboon dadka Soomaaliyeed inaan looga ciyaarin maaragtay aan qalqal la gelinin nabadgelyadooda qof walba oo Soomaali ah ayaa xil wuxuu ka saaran yahay ama ahaw siyaasi ama ahaw shacab qof kasta maanta waxa uu xil ka saaran yahay nabadda Soomaaliya maanta ay ku naaloonayso iyo dawladnimadaas qof walbana maanta ma jirto cid ka faa'iideysa in dalkan dawlad la'aan ay ka dhacdo ama qalalaas uu ka dhaco sidaa darteed ama siyaasi ah ama mucaarad ah ama qof kasta ah maanta waxaana deeqa waa in dalkaas uu nabad ahaado sidaa darteed waxaa habboon qof walba inuu qayb ka qaato nabaddaas wax firaaqana ma jiraya runtii dawladda Soomaaliyeedna waxay madaxweynuhu cadeeyay inuu tanaasulaad sameeyay had iyo jeerna uu diyaar u yahay wada hadalladuna ay sii soconayaan marka waxyaabaha qalqalka ku abuuraya bulshada iyo dadka dacaayadaha maaragtay la dhex fadhiya waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa runtii aan boos ku lahayn qof walbana taariikhda qori doonto dalkana nabad baa wada deeqda qof kastana xilli buu leeyahay xilli baa la yimaadaa xilli buu baxaa laakiin qof walba maanta wixii uu dalkiisa iyo dadkiisa u geysta ayaa hari doona aad iyo aad u mahadsantihiin